السلام عليكم أرضي وين سلامي. عشر كسوهيلي وضع عشر كانوا بيكوسا بسني فيا شريعة English حلولها administrative وادس واي فيا شريعة حوا إريو تلمام بحيال أما تلماميال أما إشاريال وإريو لو استعماله تلمامتا أما إشارة بحنتا English no administrative وادس مركي لها إريو لو موجيو تلمامها waxaas marka leedahay ayaa la isticmaalaa mifano waa tusaale ahaan oo kale he marka dhehaysid he waa kan ku hor yaala hadda qalinkan waa he aa leedahay kan hiyo kaas cabaar buu ku jiraa hiyo waa cabaar mid ku jira kaas waa kan hortaada yaala kanna waad u jeedaa waad tilmaamaysaa cabaar buu u ka yar fogay ilaa halkaas camal kaa jooga meeshaas camal waa arki kartaa okay halkan waxaan ku darin ile maxaa waaye midka saddexaad ile cabaar midka jira waa ilaa marka hiyo kan uu yahay ile ilaa halkaas camal waa fog yahay wuu yara fog yahay laakiin isha way qabataa waa fog yahay laakiin isha qabato ile aa leedahay kuwaana iyadoo jamca waaye hizi waxaa waaye kuwan ayagoo badan oo jamci hi waaye hizi kuwan waaye way badan yihiin hizo kuwaas ilaa cabaar ku jiraan midda saddexaad waxay noqonaysaa zile kuwaas ayaga way ka fogyihiin kuwa marka zile marka dhehaysid way sii socdaan ilaa isha meesha markay ku egtahay oo kale halkaas bay ka muuqdaan isha way sii qabanaysaa zile baa leedahay dhumirwan ish meeshaasay ka baxayaan laakiin hizi marka dhehaysid ilaa waxay gaarayaan halkaas camal ay gaaraan ishi way qabataa waa aragtaa hizo kuwaas zile marka dhehaysidna waa kuwaas hadda sometimes ciriiri ku noqonaysaa in la arko hizina waa kuwan hortaada yaalo waa tilmaamayaasha soo kuwa marka waxaa loo isticmaalaa sheeyaasha qalinka buugga guriga waxaa nooleen baa loo isticmaalaa hiyo ile waa kili ama mufrad markay yihiin saddexdan kan kaas fog waxaa kasii muuqdo waa laga yaaba inuu qadka kasii bixiro meeshaas jooga waay jamcoodin waxaan dhahnaa hizi kuwan ujeeda horteeda yaalo hizo kuwaas zile kuwaas xagga jiraan oo fog waa meel fog waaye laakiin ishi way muuqataa way sii dhumaayaan marka intaan oo dhan oo jamca ama keli waxaa loo isticmaalaa ilaa qaybtan waxaa dhahay waxaa loo isticmaalaa keli saddexdaana waa jamac waa tilmaamayaasha English oo kale hadda markaan ka dhigno kan waxaa waaye he waa this hiyo waa that English labadaas uu leeyahay asaga mid saddexaad male kan unbaa wax markaas fog ama aanan isha qabadeedin oo isticmaalaysaa ile that uu noqonayaa hizi waa these marka